hogaamiye ku-xigeenkii hore ee gruubka SSC Khaatumo oo ka soo degay Hargeysa Maxamuud Cabdulaahi Caananu madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo sheegay ganacsatada Puntland qaybahood inay yihiin Daacish soo xidhay shaarka ganacsiga Maxamed Kaahin oo fariin weyn u diray siyaasiyiin markan damacoodu yahay habreernimo in wax lagu heli karo inay tahay suuragal sheegayna inaan reernimo waxba lagu heli karin laguna xanan karin kusoo dhawow daawashada muuqaalka oo dhammaystiran qodobadan ayaynu ku soo qaadan doonaa warbixinteena inta uu socdo barnaamijku waxaa magaalada Hargeysa maanta ka soo degay Maxamuud Cabdulaahi Caananu ninkan ayaa barigii ugu dambeeyay si weyn uga soo horjeeday aragtida ka dhisan halka iyo bariga gobolka Sool gaar ahaan kooxda iyo gruubka uu hogaamiyo firdhiyo oo arigii kuwaan markan hanaanka iyo habka ay wadaan ay tahay mid aan ka saari karayn marxaladda qallafsan ee nololeed ee bulshada iyo sidoo kale mid keenaysa xasilooni siyaasadeed iyo nabad waarta geeska kale waxa uu si weyn uga qeyliyay sida fiintana uga hadlay kadib mashaqadii foosha xumeyd iyo xasuuqii cali cadeeye hogaamiyaha markan isa soo dhibay ee geeska Somaliland soo gacan galay ayaa ka soo jeeda deegaanka Buuhoodle waxaanu muddo dheer ahaa shaqsi si weyn aragtida uu hadda ka tanaasulay si weyn u aaminsan markan samiyada iyo siyaasiyiinta Somaliland qadiyadahan ay ku dagaalgelisay iyo kuwa horboodaya qadiyada qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland oo maalmihii u dambeeyay u soo goosanayay geeska Somaliland si weyn wuxuu ka goyn karaa sida ay aaminsan yihiin siyaasiyiinta hogaamiya Somaliland xilligan ayaa gacanta lagu dhigay caaqilo salaadiin iyo sidoo kale siyaasiyiin hore xilal uga soo qabtay Somaliland iyo meelo kala duwan ayaa isku soo dhiibay maalmihii ugu dambeeyay haddii ay noqon lahayd xag la toosiyay mid ka mid ah chief caaqilada ugu sarreeya isla beesha degan bariga gobolka Sool aragti ahaan waxa jiray saraakiil iyo ciidamo iyaguna ku soo biiriyay dhanka ciidanka Somaliland oo soo goosanayay iyagoo gaadiidkoodii iyo tiknikadoodii wataa dhammaan aragtiyahan iyo arrintan waxa ay muujinayaan sida Somaliland iskugu diyaarinayso laabasho dhammaystiran oo ku saabsan bariga gobolka Sool muddo wada hadal iyo waliba waan midkoodna mihirgelin gees kastana waxa ay u muuqatay doodka adag geeska Laascaanood oo doonisteedu ahayd inay darbi ka dhigato maxaabiista tirada ay gacantooda ku jira iyo sida oo kale inay istiijiso in xaqiiqada si weyn loo waajaho hase ahaatee xaaladda hadda ka jirta ayaanu ogolaanaynin si haysashada aragtida bulshada iyo waliba waaqica dhabti halka ka jira sida uu si cad u sheegay ninka ku soo noqday Hargeysa maanta oo isagu tilmaamay inaan bulshadu markan lagu hortoognaan karin wax u eeg sida contender hadalkiisuna waxa uu markan muujiyay in dadku halka niyad ahaan aanay ku xasiloonayn markana ay u muuqdaan in ay soo raacayaan laxanada iyo hirarka Hargeysa naqba ka daay dib loo noqonayaa Maxamuud Cabdulaahi Caananu si cad ayuu sheegay in siyaasiyiin badan oo hortabin leh bulsho badan oo deegaankiisa iyo kuwa badan oo markan aragtida la xambaarsanaa dhammaantood ay ka siman yihiin aragtida in dagaal lagu waajaho qadiyada iyo aragti kala duwanaanta Somaliland dhexdeeda ee bulshadu marka hore inay ahayd fikrad khaldan iyo go'aan khaldan oo ay soo riixeen dad khaldan xilli khaldan dad badana lagu khalday sida uu sheegay dadkii la khaldayna kuwii ugu waaweynaa isagu ka yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo maanta ka jawaabay eedeymo maalmihii u dambeeyay loo soo jeedinayo xukuumaddiisa sida inuu xidhmay ganacsigii Boosaaso inay xidhan tahay dekedii Boosaaso iyo waliba in xukuumaddiisu ay samaysay cashuur kordhin markan lagu soo rogay dadka shacabka waxa uu Siciid Cabdulaahi Deni sheegay waxaasoo dhani inay yihiin waxba kama jiraan iyo eeda aansal iyo raad lahayn kuwaasoo lagaga raad gadanayo in la waajaho xaqiiqooyinka dhabta ee dul hoganaya arrimaha miiska saaran waxa uu sheegay inaan dekeda Boosaaso xidhnayn wararkaasina yihiin been abuur geeska kale waxa uu tilmaamay cabashada ganacsadayaasha Puntland ka soo baxaysay ee dekeda qusaysay maalmihii ugu dambeeyay inay muujisay aragti kale oo xooganayd oo dadku hoos u sheegi jiray balse ahayd xaqiiqan laga gaban karin dowladda Puntland ay wado baaritaano rasmi ah oo lagu xaqiijin doono waxa uu sheegay qaybo ka mid ah ganacsatada reer Puntland inay yihiin kooxaha xagjirka ee Daacish oo ay salka ku hayaan kooxaha xagjirka oo ka dhaxeeyay wada shaqayn markana ay soo xidheen shaati ganacsi oo ay yihiin xubno ka tirsan kooxda waa eed weyn oo ujeediyay Deni inkastoo aan farta ka fiiqin shakhsiyaad muuqan kara sida hebel iyo hebel balse waxa uu si weyn u guud maray in xukuumaddiisu ay baadhitaan
joogtaa ku hayso dadka ku howlan ka qayb ahaanta kooxaha xagjirka ee Daacish ee ganacsiga shaarkiisa soo hugay kuwaasoo uu sheegay in loola xisaabtami doono si adag oo ay ka qoomameeyaan dibna aanay ugu dhicin tallaabooyinka ay hadda qaadayaan kuwaasoo kuwa waxyeelaya jiritaanka iyo aasaaska bulshada Puntland. waxa uu tilmaamay inaan xukuumadda Puntland iyo dadkeeda loo kala sheegayn karin xukuumaddiisuna ay diyaar u tahay inay qanciso bulshada reer Puntland si weyn ay diyaar ugu tahay wax kasta oo tabashooyin ama wax kasta oo aragti ah inay la wadaagto bulshada intii ay la wadaagi lahaayeen kooxaha xagjirka ee markan isku soo aasaasay sidii loo burburin lahaa Puntland. waxa uu sheegay diyaw kale oo markan laga soo diray geesas kale oo ay ku weyn tahay xamar inay doonayaan baafinta Puntland balse arrintaasi adag looga hortagayo. Puntland iyo Muqdisho waxay ahaayeen maalmihii ugu dambeeyay kuwa aan qarsanin heerka naca cunfiga iyo weliba kala taga gees walibana waxa uu sameynayay cadaawad iyo isku urursi inkastoo geeska xamar ay u badneyd ururinta iyo ka dhex samaysiga laamo ka soo horjeeda Puntland oo lacag lagu siiyo isla Puntland gudaheeda kuwaasoon la aragti ahayn maamulka iyo nidaamka halkaa ka jira. waana sababta uu Siciid Cabdullaahi Dani xilligan ugu yeedhayo kooxaha xagjira oo laga soo diray xamar oo ay ka mid yihiin saraakiil hore oo ka tirsanaa ciidanka maamulkaas oo markan la aragtiya xukuumadda dhexe ee Soomaaliya oo si weyn uga soo horjeeda hoggaanka Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo ay u aragto mid karkaarka weydaariyay siyaasadii iyo weliba wax wada lahaantii bulshada. Bismillahir Rahmanir Rahiim. maanta halkan kulankan aynu isugu nimi ay ku dhameystiran yihiin mas'uuliyiintii xisbiga ee guddiga fulinta gudoomiye ku-xigeenadii xogayaha guud iyo gole dhexe xubnaha ka jooga iyo waayeelka haweenka iyo ragga dhalinyarada iyo waayeelka. marka ugu horeysa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulankan maanta waxaynu uga jeednaa in aynu ugu diyaar garowno oo isku wargelino haddaynu xusbi weynaha kulmiye nahay muddada labada wiig ee wax dhiman laga joogo shirkii golaha dhexe ee xusbiga ee dhacaya inaynu dhammaanteen u diyaar garowno. xusbiga shirka waxa inoo galaya xubnaha golaha dhexe. xubnaha golaha dhexena waa intii uu inaga xulo shirweynaha xusbigu gidigeen wadageli mayne markaa waxa inaga matalayaa intaa maxaan ku dhahdaa golaha dhexe laakiin inteena kalena waxaynu mas'uul ka nahay oo xili naga saaran yahay oo waajib xusbi naga saaran yahay diyaar garowga qabanqaabada xubnaha maxaan ku dhahday taabintooda xarunta laga diyaarinayo mas'uuliyiinta joogta iyo gobolka Maroodijeex dadweynihiisa iyo shicibkiisa iyo xubnihiisa xisbigu inaynu guddigood wada diyaarino. waxa kaloo inoo imanaya maxaan ku dhahday gobolada dhammaantood diiwaangelintooda wax yar baa ka harsan way dhammaystiran tahay inteeda badan. waxa ka imanaya xubnihii xisbiga golaha dhexe iyo xubno la socdaana way imanayaan. marti waxa loo noqonayaa halkan gobolka Maroodijeex marti waxa loo noqonayaa xisbiga kulmiye ee gobolka. marka waxaynu u baahanahay martigelintoodana inaynu diyaar garowno xaruntana ay mar walba inteena kale inoogu yimaadaan arrimaha guud ee xisbiga iyo arrimihiisa la xidhiidhana inaynu guddigan maxaan ku dhahday la wada diyaarsanahay baynu u baahanahay. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida sharafta leh ee haybadda leh ee urursan ee diyaarsan ee miisaanka leh ee asaaka markii la iswargeliyay inaynu maanta shirka guud isugu nimaadno inaa u soo buuxiseen inaa halkan isugu timaadeen. de waxaanu leenahay Somaliland guul kulmiye guul Somaliland waxa lagu waalo reerna laguma helo wax ka sokeeyana laguma helo. inaku haddaynu kulmiye nahay
kulmiyannimadaynu wax ku helaa laba madaxweyne waxaynu ku doorannay kulmiyannimo ma qabyaalad baynu ku doorannay maantana ka dambena waxaynu ku dooranaynaa kulmiyannimo dadnimada iyo xusbinimada iyo qarannimaduna waxay ku jirtaa xusbiyaashan in qarannimada ku asaasmay kulmiya ha guulaysto aad iyo aad baa u mahadsantihiin